number percentage 95% ka mid ah cashuurta ay qaado xukuumaddu ay ka qaado shidaalka baa loo wareejinaya qaadka waxaan doonayaa marka qiimaha qaadku inuu kor u kaco qiimaha shidaalkuna jabo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qorsheynaya qorshe wax ka bedel loogu sameynayo canshuuraha laga qaado shirkadaha shidaalka Soomaaliland keena kadib sicir barra ballaaran oo ku yimid qiimaha la kala siisa shidaalka Soomaaliland kaasi oo saameeyay noloshii kale xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo goor dhaweyd la hadlay telefishinka Home Cable ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo xildhibaano kale oo kamid yihiin ay wadaan qorshe ay doonayaan inay golaha wakiilada ku hor keenaan ajada wax lagaga bedelayo canshuuraha laga qaado shirkadaha keena shidaalka taa bedelkeedna canshuuraha si lagu bedeli doono shirkadaha keena qaadka si uu hoos u dhac ugu yimaado qiimaha la kala siiso shidaalku wana kan xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa gaarka u leeyahay golaha wakiilada waxa kamid ah inuu cashuurta oo soo saari karo xeerar cashuureed sharciyo ku saabsan ama xeerar ku saabsan cashuuraha dalka waxaanu imika ka fikiraynaa inaanu samayno biidnillaah cashuurta aanu fargelino oo taxka cashuurta laga qaado shidaalka 95% inaanu hoos u dhigno cashuurta laga qaado qaadka in la saaro 95% cashuurta qaadka la kordhiyo 95% cashuurta shidaalka hoos loo dhigo qodobkaasna hadda ka fikiraynaa imika la tashi waan ku jirnaa sharci yaqaanadii iyo qaabkaanu maaragtay ugu wanaagsanaa qodobada u dhigi lahayn qaabkaanu u soo dhigi lahayn golaha biidnillaahi kariim qolada shidaalka hadda shirkadaha shidaalku walow lagu sameeyey maalgelin badan ay heleen oo qaranka ka heleen oo qaarkood la wareegeen asadkii dhammaa ee dowladda qaarkoodna solar system hadda ceergaabo kale solar system 1.5 million dollar ka badan baa lagu maalgeliyey haddana way kordhinayaan oo si bilaasha loo maalgeliyey oo maalgelin baa la siiyey solar system iyadoo walow ay taasi jirto haddana lama dafiri karo in shidaalkii qaali garoobay dhib laftoodu inay dhib dareemayaan lama dafiri karo dowladdu inay iyaga ay cadaadiso isla markaa xagga markaa shidaalka laftiisiina way ka fikirto wiigii dhaweyd waxaan ka soo noqday dalka dalweynahaynu jaarkanahay Ethiopia litarka shidaalka ah ee wajaale dhinaca shishe 3,900 buu marayaa 3,900 wajaale dhinaca laba dhinac weeye daanta shishe kaalinta ku taala ee ka furan litarka shidaalka wax lagu iibinaya 3,900 oo u dhiganta wuxuu dhigma 0.46 dollar 0.46 waa half dollar 0.5 dollar wax ka yar baa litarka shidaalka Ethiopia waxaad oran kartaa maskaxda waxa ku soo dhacay waa dalweyn oo ballaaran laakiin inaba dal baynu nahay dal la yarood male dawladnimo ma qabato qura amaan qura kama shaqeyso dawladnimo boolis qura oo dadka xidhxidha kama shaqeyso dawladnimo waxay qabataa dawladnimo waxay qabataa shaqo badan oo ummadda u baahan tahay oo lamida tanabadgeliyo xumada lamida sixir bararku waa nabadgeliyo darro waa food insecurity waa xasilooni darro cunteed oo ummadda waxa ku dhacay wax la yiraahdo xasilooni darro dhinaca cuntada ah haddii food insecurity dhaco waxa halisa security-ka guudna uu khalkhalo oo la isboobo oo la isdhaco baa halisa kaydka qaranka baa laga kabi lahaa shidaalka dowladdu population-ka may siin xog ah ku saabsan wax xeerada gunteeda ku jira oo dowladdu waxay inay dadka u waranto oo sheegto oo yiraahdaan ma lihin haba yaraatee wax la national reserve ama kayd qaran ma jiro cashuurta ay dowladdu qaado baanu leenahay way la maamulaa cashuura way la maamulaa rotation baan sameynaa waa kala wareejinaynaa number percentage 95% ka mid ah cashuurta ay qaado xukuumaddu ay ka qaado shidaalka baa loo wareejinaya qaadka waxaan doonayaa marka qiimaha qaadku inuu kor u kaco qiimaha shidaalkuna jabo way qaadku necessary maaha wax loo baahan yahay maaha waa wax ay dadku u cunaan si fakahaysi oo daraagisa shidaalkii laakiin maxaa looga baahan yahay noloshii oo dhan baa looga baahan yahay gawaarida hadda inay istaagto waa halis tagaasidii baa khatar ku jirta islaanta miyiga joogta ee meel fog joogta kiishka bariiska ee qaaliga ah ee loo saarayo baa qiimaha lagu rarayo baa qaali noqonaya sidaa awgeed maadaama shidaalkii uu saamaynayo nolosheeda dhammaanteed annagu qorshahaanu ka fikiraynay annagoo ka jawaabaynaa dareenka bulshada iyo dhibta bulshada haysata awgeed baanu aanu ka fikiraynay aniga iyo xildhibaano kale oo aan isku dareennahay oo golaha ka mid ah
guud ahaan 82 xildhibaano isku dareen baan arkaa ka nahay axmed shimaali honkebel t v hargeysa